بسم الله الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. runtii xildhibaanka jaandhe ayaa siday u sheegay waxaan ku daraabaa wax badan ma jiraan maadaama uu magacaygiina ku xusay raggu markay isu yihiin asxaab inay wada hadlaan oo ay arrin aan ila ogeyn waliba guddidu ayaa ahayd hase yeeshee waxaa ii muuqatay inuu aan ugu talagelin murashax hado waayo qofku murashax noqonayaa waxa weeyaan sidii ay raggii ka horeeyayba isagoo ayagoo wataan alaabtoodii kii u imanayeen inuu yimaado bay ahayd isagoo tiim dhan wata oo aad moodaan saxaafadda hadday markay eegtaan mujtamaca daawanaya tvgii dib ugu noqda albaabkaa markuu ka soo gelayey bannaanka gaadhuu ka degayey kabar dawladaba socday ilaa uu soo gelayey dee qof doonaya inuu application dhiibaa muu soo kaxaysteen saxaafad dadna muu soo kaxaysteen maalintii khamiisu noo yihina waxa xogayuhu waa kaa telefoonkiisii waa kaa xilli kasta waa laga qabay la kaalay annagoo asxaab baanu nahayn telefoon igu soo dhafan lahaa wuxuu lacagtii waan wadaa wax dhibaadi bay dhaceen kijaandho habeenada la hadlo uu tagi lahaa uu dhiibi lahaa waxaanu ka raali gelinaa publica in xisbigan uu yahay xisbi lagu tartami karo aan cidna loo diidayn qofkuna waxa qurux badan inuu asagu shakhsiyan ani yidhaahdo reerka lagu dagabadaa ani adduunka waa ka mamnuuc waxa la yidhahdaa annaga waa laga mamnuuc aniga baa la yidhahdaa raganimada qofka ayuu lagu soo baxaa laakiin mujtamaca lama geliyo khalkhal xisbigana waa lagu tartami karaa xor baana runtii loo yahay waxaana uga ka raali gelinaa mujtamaca in mataqaanaa xisbigani uu yahay xisbi arrimihiisa dhexdooda ah iyo wixii khilaafaada uu xalilo waxaanu jecel lahay qof kasta oo wax tabanaya xaq uu leeyahay qofku tartamo qofkii wax tabanayaana dee xisbigu wuxuu leeyahay nidaam loo maro guddida qabanqaabada waxay ka mas'uul tahay arrimaha inta shirku socdo waxaanu jecel lahay inaan cid kale afka xisbiga inta shirkaas socdo wixii khuseeya loo daayo oo keliyata guddida qabanqaabada ayaa afka ku hadli karta saxaafadda saas soo sheegnaa wana mahadsantihiin